kadib geeridii Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee Bilaal ibnu Rabaax Allah ka raali noqdee mar uu joogay Shaam ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxa uu ka soo booday hurdadiisa markaas ayay xaaskiisa weydiisay waxay ku tiri maxaa kugu dhacay wuxuu ugu jawaabay waxaan ku riyooday Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam isagoo idu leh maxay tahay fogaanshahan Bilaalow soo ma ahayn inaad i soo booqato markaas ayuu Bilaal go'aansaday inuu u safro Madiino markii uu yimid waxa uu aaday qabrigii Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa Allah yeelay wuxuu bilaabay kadib inuu u ooyo si murugo leh isagoo wejigiisa ku xoqaya qabriga xasuus iyo jacayl darteeda markaas ayaa Xasan iyo Xuseen u yimaadeen Bilaal wuu ku orday wuuna isku duubay wuuna dhunkaday labadoodii isagoo ilmeynaya waxay ku yiraahdeen Bilaalow waxaan jeclaan lahaynay in aan maqalno adigoo aadaamaya Bilaalna wuxuu dhahay haye wuuna ka aqbalay wuxuu koray guriga dushiisa markaas ayuu istaagay si uu aadaanka u bilaabo markii uu dhahay Allahu akbar magaaladii dhan way diriirtay markii uu dhahay ashhadu an laa ilaaha illa Allah magaaladii oo dhan dhagaxay wada taagtay markii uu dhahay ashhadu anna muhammadan rasuulullah gabdhihii waxay ka soo wada baxeen guryahooda ayaga oo ku dhawaaqaya rasuulkii ayaa soo noolaaday markii rasuulkii Ilaahay geeriyooday lama arag magaalada Madiina maalin ka murugo badneed maalintaas